ciyaartii xiisaha badneed ee u dhaxaysay Daniga iyo sidoo kale Gololey ayaa soo idlaatay. Daniga ayaana 4 gool looga adkaaday. ciyaartii xiisaha badneed ee u dhaxaysay Gololey iyo sidoo kale Danigana waxa win noqotay Gololey oo ku adkaatay 4 gool iyo gool. ciyaar aad u xiiso badan ayaa ka dhacday Dr. Ayub Stadium taas oo ahayd mid markaasi aad ay ugu riyaaqeen dhammaan mucaashaqiintii u soo daawasho tagtay kulankaasi. kulankan oo ahaa mid markaasi si aad u weyn ay u xiiseynayeen bulshooyinka ku nool degmada Balcad ayaana wuxuu ku soo idlaaday 4 gool iyo gool ay markaasi awood ay ku raacday Gololey ayaana markaasi u gudubtay sabab fiinaalaha. alxamdulillah ilaahay ma iskala waran waxa uu mahadcelinaa ilaahay ka suko macallimiinta sharafta leh ciyaariyahanka oo ay garab ciyaareen sharafta leh aad ugu mahadcelinaa waxa rajeynaa insha Allah koobkan kulanka wixii ka dambeeyo insha Allah guul rajeynaa farxadna soo koobi kara maahan hadaan aanay tuulada Gololey Daawud والله مرحلتنا واحد سكوبي كرمان فرحتنا سما فينا لا فديا aniga waxa waaye dadka la liidayaan ku jira insha Allah gacanta koraysan Allah ay ku daro guul dhalinyarada oo degmada teamka soo baxay oo gruubada ka soo baxay ay yimid semifinal waxaan leeyahay hore u socda duudi dadaalka badiya hana lees walaashto Bruno isbarasho iyo wanaag waaye hore ha loo socdo anaga dadku waxay naga aaminsan yihiin minihin waxaana dad maanta xifrad leh aqoon leh maarata dadkana wax la qaybsan karo insha Allah Gololey ayaana wacdar aad u weyn ka muujisay Dr. Ayub Stadium anigu waa saaxiibkiin Jeelana Cali Muxuu Kamaru idin dhahay Somali Sports Hormarle